boqorka Jordan boqol Cabdallah ayaa booqan doona Ramallah si uu u qaboojiyo xiisada u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda ka hor bisha Ramadaan. kanaalka wararka Israa'iil ee kan ayaa ku waramay in socdaalka boqorka Urdun uu la xiriiro sidii looga hortagi lahaa fidna ka dhalan karta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. boqorka Urdun boqor Cabdallah ayaa qorsheynaya inuu kula kulmo toddobaadka soo socda madaxa maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas magaalada Ramallah si uu u qaboojiyo xiisada ka taagan daanta galbeed ee la haysto ka hor bisha barakaysan ee Ramadaan. sida uu ku waramay janaalka wararka ee Israa'iil ee kan ayaa sheegay in boqor Cabdallah uu safarkiisii ugu horeeyay ku tagi doono dhulka la haysto tan iyo sanadkii 2017 horeynta aan la xusin xiisadii sanadkii hore ka dhacday magaalada Qudus oo markii dambe dhalisay in 12 maalmood ay Israa'iil weerar ku qaado Gaza. xiisada ayaa ka dhalatay sanadkii hore markii Israa'iil ay isku dayday inay qoysaska Falastiiniyiinta ka saarto xaafadda bariga Qudus ee Sheekh Jarrah si ay u soo degaan dadka Yuhuudda ah. arrintan ayaa kicisay mudaharaadyo baahsan oo ka dhacay guud ahaan dhulka la haysto ee daanta galbeed iyo bulshada reer Falastiin ee ku nool gudaha Israa'iil, taasoo keentay in Israa'iil ay howlgallo ballaaran oo militari ku qaado marinka Gaza ee go'doonsan. sida laga soo xigtay Axios, saraakiisha Mareykanka ayaa ka shaqeynayay sida ay u xasilin lahaayeen Jerusalem hor sanad guuradii colaadii May sanadkii 2021 ka dhacday, halkaas oo ku dhawaad 250 Falastiiniin ah lagu dilay, halka dhinaca kale ee Israa'iil lagu dilay 13 qof. Asiin Israa'iiliyiin ah oo ay garab taagan yihiin booliska Israa'iil ayaa xoog ku galay dhismaha masjidka Al-Aqsa usbuucii hore si ay u xusaan ciidda Yuhuudda ee Purim. Israa'iil waxay qabsatay bariga Qudus halkaas oo uu ku yaalo masjidka Al-Aqsa intii lagu jiray dagaalkii bariga dhexe ee sanadkii 1967 sanadkii 1980 ayay la wareegtay magaalada oo dhan, taas oo ah talaabo aysan beesha caalamku marnaba aqoonsan. Jordan ayaa ilaa 1920 ahayd ilaaliyaha goobaha barakaysan ee muslimiinta Qudus. xaruntan oo ku fadhida meel dhir leh oo ku taala magaalada qadiimka ah ayaa sidoo kale waxaa ixtiraamay Yuhuudda oo ugu yeera Temple Mount. dhaqdhaqaaqayaasha midigta fog ee Israa'iil ayaa si isdaba joog ah u xoojinayay joogitaankooda Yuhuudda ee goobta. qaarkoodna waxa ay u ololeeyeen in la burburiyo masjidka Al-Aqsa si loo sameeyo macbad saddexaad.